Sanadku waa 2007 waa xilli ay doorasho ka dhacayso waddanka Kenya. Laakiin waddanka Kenya wuxuu qarka u saarnaaday in uu burburo kadib markii la isku qabsaday doorashadii waddankaas ka dhacday. Madaxweynayaal waxa uu tartamayeen Uhuru Kenyatta, Moi Kibaki iyo Raila Odinga. Doorashadaas waxay u ekeed mid uu ku guuleystay mar hore madaxweyne Raila Odinga, waxaana la rajeynayay in 4 sano soo socota uu hogaamiyo waddanka Kenya. Laakiin musuq iyo isdabamarin kadib doorashadii waxaa ku guuleystay Moi Kibaki. Kadib waddanka Kenya waxaa ka bilowday qalalaase aad iyo aad u weyn. Dilka ayaa caado ka noqday, dhicitaanka caado ayuu ka noqday, kufsiga caado ayaa ka noqotay Kenya. Xitaa booliskii ayaa waxay u kala baxeen qabaa'ilo. Labada qabiil ee ugu tuka weyn Kenya ee Luo iyo Kikuyu ayaa waddanka isku haystay. Uhuru Kenyatta waa nin Kikuyu, halka Moi Kibaki uu yahay Kikuyu, dhanka Raila Odinga uu yahay Luo. Ciidankii ayaa qabaa'ilo u kala baxay. Sidoo kale Kenya oo aan ognahay 47 qowmiyad inay ku nool yihiin, qowmiyadihii waxay u kala baxeen inay kala taageeraan labada qowmiyadood ee ugu weyn waddanka ee Luo iyo Kikuyu. Akambaha wuxuu taageeray Luo, halka Kilinjiga uu taageeray Kikuyu. Masaayda waxay taageereen Kikuyu, halka qabaa'ilada Soomaaliyeed ee dega North Eastern Kenya ee xoogga ku haysta Kenya ay taageereen Kikuyu. Coastalka qabiilaha ka soo jeedo dhammaantood waxay taageereen Luo. Xasan Cali Joho oo markaas ahaa gudoomiyaha ama gafnatooraha Mombasa ayaa si aad u taageerayay Raila Odinga. Kenya qarka waxay u saarnaatay inay ka mid noqoto wadamada burburay ee qaaradda Afrika dagaalaha ay saameeyeen sida Soomaaliya, Ethiopia, Libya, Nigeria iyo wadamo kale aan tira intaas ka badan ah. Laakiin isla markii waxay bilaabeen inay halgaaraan. Qaramada Midoobay ayaa soo dhex gashay, inkasta oo Qaramada Midoobay lagu tilmaamo in ay sii burburiyaan waddanka. Laakiin saddexdoodii ay shir jaraa'id qabsaday waxayna sheegeen in ay saan u qalmin waddankan quruxda badan ee Kenya. Waxayna rabeen inay heshiiyaan. Marka la fiiriyo Kenyaanka waxaa la dhihi karaa waa siyaasiyiin aqligoodu xoogaa isku roon yahay markii loo fiiriyo kuwa isku sheego siyaasiyiinta Soomaalida ee Soomaaliya madaxda ka qabtay iyo kuwa hadda jooga iyo kuwii ka sii horeeya. Uhuru Kenyatta ayaa waxaa loo dhiibay ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee waddanka, halka Raila Odinga loo dhiibay ra'iisul wasaaraha koowaad ee waddanka, halka madaxweyne loo magacaabay Moi Kibaki, halka Mudavadi asagana loo magacaabay ra'iisul wasaaraha labaad ee waddanka. Sidaas waxaa ku soo gabagaboobay mid ka mid ah dagaalihii ugu xumaa ee soo maray Kenya xorriyadda kadib. Waxayna ku dhawaa gartay Kenya inay ka mid noqoto wadamada caalamka burburay. Inkasta oo Kenya dhibaatada koowaad ay haysato maanta ay tahay musuqmaasuqa. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ilaa 2017 si loo doortay ilaa hadda waddanka muu ka dhamayn musuqa. Kenya waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah wadamada ugu musuqmaasuqa badan Afrika markii laga soo tago Nigeria.